cawaysin wanaagsan dhammaan saaxiibada qaaliga ahaa iyo meel kastood caalamka naga daawanaysaan waa mar kale barnaamijkeena xidigaad uga barateen inaan idinkaga soo tubino xarunta dhexe magaalada tan London uu ku leeyahay telefishinka qaranka Soomaaliyeed. barnaamijkana caawa waxaa martiigu ah fanaan dhalay fanaankaasoo wada taqaanaan horena aad u maqasheen heese ka mid ah heesihiisa waa fanaan diidi Axmed naji haye waxaad sugtaan waa sacad diidi kusoo dhaweey telefishinka qaranka Soomaaliyeed barnaamijkeena xidigaha oo aad hadda ka hor muddaan filayo 3 sano ka hor inaad marti kusoo noqoto caawan ay ku tahay markii labaad aad baan ugu faraxsanahay inaad waqti kale u soo hesho aad barnaamijkan mar labaad igala soo qayb gasho aad iyo aad ayuu mahadsantahay wiish waan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo barnaamijkan iyo TV-ga SMTV oo maanta ay ugu casuntay aad iyo aad ay ka qaadeen aad baad u mahadsantahay diidi Axmed naji waxaa tahay fanaan da'yar oo isleeyahay qaabkii fankii Soomaali lagu yaqaanay waxyaalo badan baad ka bedeshay oo dhankii dhalinyarada ayaad ma aragtay fankii maadaama casri kale la galay ayaad ma aragtay si kale u casriyaysa anagoo taas iska wareysan doono ayaa waxaan jeclahay bal maadaama adiga muddo ku dhawaadaasaan aan hore u sheegay 3 sano in ma aragtay isku keen dambeysay bal maxaa kala dambeeyay haddii aad ma aragtay dib u xasuusto haddii dhan sugaan la dhahayo heeso fankaagii halkee buu marayaa maxay ka dambeeyay wallaahi wiish wax badan ka dambeeyay haye marka sida ogtahay 3 sano isku dambeysay aniga adiga haye marka yani marka horumar fiican waa gaarnay haye fanka Soomaaliyeed hadii la dhaho marka anakan waa ogtahay dhalfaneedaan nahay haye marka jiilka jiil ya haye legacy-ga waa sii wadnaa haye marka qor isku dhiibka waa socdaa wili haye ya duqi walaalahay Yusuf daadi cantar yani waa socdeen wahaab oo hadda Canada joogo haye muusishka caaga asaga marka hadda jiilka saddexaad ay maraysaa haye adigana bal laga yaabaa inaad dadka u sii dhiibto insha Allah waa dhici doontaa haye inuu sii dhiibto inay socoto way legacy-gan waa ku tala jirnaa marka inaan يعني هرمركي أو شريري لوجي قاني إيو موسيقى دي فعند مركي إنا سي هرمرينو مجا أب وسمي إنه سمرنا بابين إنه مرسنا بابين إنه سي سعودو يولي إنا نسي جان قادنو على موينا دونكو هذا وقتها ملسي مرين سومالي هذا ما شاء الله ويا سي في عني يسوق كوريسا مركا وسي جعلنا إنا سي ون ديدي أحمد ناجي سعد إن سيدا نكسونا هاي ضد بدن مركي عاو مقال كأركان isla markiiba waxay soo gacanayaan ama xasuustooda ay dib ugu noqonayaan hees hal hees ah ummadda Soomaaliyeed heestaasoo magaceeda ama maaragtay magaca loo bixiyay ahayd caadi leeyahay wax walba waa iska caadi wax caadi ma jiro laakiin heestaada caadi leeyahay maaragtay bal heestaas maadaama aan ogsoonahay inta aan ka ogsoonahay aabba ayaa heestaas ku dhiibaan jeclahay sababta heestaas ay ku imaatay caawa haddii aad ma aragtay aad bal wax yar aad nooga sharaxdo heestaas waxay ku imaatay horta aniga muusiga waa iska jeclahay marka aabba muuna arki jirin anigoo heesay iyo waxaas iyo marka qaabkaygu fiiriyay wuxuu yiri sug adiga waxaan ku hayaa heestan aan ku dhiibaya oo la yiraahdo caadi leeyahay markaas hore uma heesin adiga aniga hore uma heesin markaas haye heesa waa jeclahay waa yani kooxo oo ajnabi aan gurbaan iskala tumi jiray oo samba iyo salsa iyo waxaas aan ku jiray marka duqi waxaas uu arkay marka aniga xataa waan geeyay mar anoo koox Brazilian la tumaayo waan waday ma tumayso marka adiga markaas aniga percussion haye bongaha iyo tumayso batri bongaha caada u garaacda haye marka meeshaas marka geey uu arkay marka kooxdii kadibna wuxuu yiri af Soomaaliga ina ku heesida jeclaalahay marka heestan marka caadi leeyahay ana qaabkaygu arkay marka wuxuu yiri waa iska caadi ila meel kale aadid ina hadda fankaaga Soomaaliga ku soo noqotid wuxuu ka baqay inaad ma aragtay dhankaas kale u badato maadaama ay dad ajnabi iyo ma aragtay alla joogto fankooda ina dhankaas u leexato ay diiday odaga fankina aad jecesho arkay adiga marka maadaama aad ogtahay aabana uu fanaan ahaa dhal fanaan aad ahayd fanka waa jecleed
miyaad la dhuuman jirtay maxaad marka aaba maadaama la og yahay nin abwaan ah musician ah mulaxamiiste ah uu ku dhalay maxaad haddii aad fanka jeceshay si toos ugu aadi weyso aaba ugu sheegi weyso inaad fanaannimo rabto fankan aad kusoo biirto maxaa kuu geeyey maaragta inaad dhankaas u wareegsato maya asiga wuuba ogaayba aniga inaan fanka jeclahay haye marka organkuuna beri jiray haye ya fanka waa jecla laakiin kubadda cagta aad u jeclahay aniga haye haye marka fanka interest badan ma sii jirin haye marka baloonigaan jeclahay si fiican aad haye kubad ma ciyaari jirto ha kubadda waxaan jeclaan lahaa inaan professional haye heer professional inaan ka gaaro haye mar laakiin qurbadii markaa imid kubaddii waa ciyaaray xoogaha marka dhalinyaro kale oo latina la qabsaday marka ayakana music jecel marka musicaas caadi waa ku jiray marka aaba kama la dhuman music wuuna ogaay sidaas daraaddeed xataa aan u geeyey kooxdii aan la tumaay brazilianka carnivalka oo ingiriiska Notting Hill carnival aan ka qayb geli jirnay marka asiga wuxuu arkay wax normaal caadi ah marka wuxuu yiri bas dhaqankaaga iyo afkaaga inaad ku heshidaan jeclahay sidaas daraaddeed af Soomaaligii iyo markaas caadi leewaay iyo meeshaas ay ka bilaabatay Soomaali fan jecelkeeda ma fahamtay marka sidaas ayaa fankii Soomaalida kusoo gashay markaas af Soomaaliga inuu maaragtay ma xumeena u maleynaa adiga maadaama caadi waaye heesta lagaaga bilaabay af Soomaaliga ilaa hadda waxaa jeclahay okay inta soo qurbada joogo marka adoo yaraa soo gashay qurbaha aad baad u yareed markaas dalkii waxba kama xasuustay marka burbur faneedka ku soo gaaray yani nasiib xumo ma u yeelanin marka inaad dalka adoo joogto anoo joog laakiin waa tagi jiray tiyaatarka iyo waxa anoo yar waa xasuustaa xoogaa bal heestaasi maadaama ay tahay hees kugu horeysay heesa ugu jeceshaana waa tahay caawa bal waxaan jeclaan lahayn inaan ku dahafurno barnaamijka heesta caadi waaye ereyada ustaad axmed naaji ayaa iskale muusiga asaa garaaca cod kale adiga ah aad baad u mahadsan tahay daawasho wacaana heestii ugu horeysay barnaamijkan oo caawa marti inoogu yahay fanaanka caanka diidi axmed naaji heestaasoo la magac baxday islamarkaasna heesa ugu jecel yahay heestiisii ugu horeysana ay tahay heestaasoo ah caadi caadi le waaye marka idinka unbaa maaragtay waxa caadi ah kala dhex bixi doonta heestaani daawasho wacan fanaanka diidi axmed naaji iyo heestii caadi le waaye عادي ليه واي عادي واي عادي وي عادي وي عادي ليه واي عادي واي عادي وي عادي وي عين كان هي عادي وي هدمك وعجبي واي عادي ويه عين كان هي عادي ويه هداك وعجبي ويايو عادي ويه فوقوكا عرون ماي كعلون حمان ماي فوقوكا عرون ماي كعلون حمان ماي عادي وي عادي وي عادي وي هدي ليك شيء عالي ويه لوقاقي علوني عالي ويه عيب هدي ليك شيء عالي ويه لوقاقي علوني
ogowka caroon maaye gacalood xumaan maaye ogowka caroon maaye gacalood xumaan maaye caadi weeye caadi weeye علف هداك شي عاشقاكي عادي ويه أنا عدلادي قلتوتي عادي ويه علف هداك شي عاشقاكي عادي ويه أنا عدلادي قلتوتي عادي ويه أوكا عرون مايه gacalood xumaan maaye ogowka caroon maaye gacalood xumaan maaye caadi weeye caadi waaye caadi lee waaye caadi weeye caadi waaye caadi lee waaye canabay haddii ugaas culumada ku dhaleen cana iyo hilib iyo cadkafi an aad cuntaan oo cambuulo iyo buunsho calabkeyga noqdeen caadi waaye caqligiina korimayo col iyo cadaawanimo cumrigiina ku dhammaysta reer cagoole reer casaanyo reer cajaajif laygu caayo caadi waaye caadi lee waaye caadi lee waaye عادي لي وايه عادي لي وايه عادي ما هو عادي ما اسكندادي وعادي وي انما عادي ما waa hagaag haddii aan halkaasi kaga gudubno heestii caadi le waaye iyo fanaanka diidi axmed naji didi maadaama heestaas caadi waaye aada ku bilowda fanka aada kusoo gashay oo aabba uu ku sameeyey heesihii kale ku xigay markaas aada qaaday maxaa kamid ahaa heestee labaad hees saddexaad waxaa kamid ahaa hees la dhahayo waan joog waan ujeeday hay waan joog waan ujeeday ha hay hees kale waxaa ku xigtay waan joogtay maxaa ujeeday waa yaabe dagaalkii iyo burburkii xamar iyo mafahant dhibaatadii ha dadkii joogayaa laga weydiinaya aniga waa yaraay marka waana joog laakiin waa soo baxnoo yar mafahant waa joog waan ujeeday taasaa kamid ah filimkaaga waa gubtay telefoon badney telefoon badney maaha mobile badaney ha iyo waxaa jirta kursiga ayaa koraa maduqooga jeceelka dhaanto marka heesooyin badan oo fiican oo soomaali hees dhaanto dhaantaana heesas maaragtay ha hees dhaante dhaqankiyo hidaheena weeyaani dhexyaray dhaanta lama tumanaay ya kuu sameeyey abba sameeyey dhaantada xataa ha dhaanta beel ahayd sababtoo aabba waxaan u malaynayaa wuxuu kugu arkay adoo dheelayso cayaarta salsaha ha marka wuxuu is leeyahay maaragtay dhankaas iyo tegin maaragtay dhaantada ma barato marka dhaantada waa aqaana ha haye maxaa kaloo taqaana cayaaraha hidahay dhaqanka soomaalida leeyihiin gabley shimbir aan aqaanaa haye shirib aan aqaanaa shiribka si loo cayaaraa hadda dheli kartaa dheli karaa wax kasta hadda salsada waa kasoo wareegi shirib i dhaanto i dhaanto
انت شرحتها وكدرينا شرحتها دينيسا عيار لك شرح عمرنا ما عرفت دنك عرفت انك صح لكن دي دقنك دانتدا شربك قبل الشمبرتا صح كل وقت قانو هذا ملا ترجمه لا ترجمه ماي او نين او عيارها كفي عناته ها صارصها ترتن اياك قيب قشان سان igu maqaala ah صح waa ka qayb galay goorma ahayd tartankaas oo ka qayb galay waxay ahayd 2004kii hay 2004 waana ku guuleystay kaalinta koowaad ka galay adaa kaalinta koowaad ka gashay salsi dad badan oo xataa u dhashay oo ciyaaraha ka qaaday ha ma laga yaabo marka ciyaarihii dhaqanka aad ma aragtay ciyaartooda bilowdo oo aad dheesho inaad kaalmahaas kala keeni karto boqolkiiba boqol markii aniga waa fududa qof fududa marka wax kasto waa keeni karaa oo ciyaar ku saabsan waa maasantahay heeso kale ayaa ma aragtay oo si casriyeysan aad usoo garaacda ayaa jiro oo ma aragtay lagu garaacayo oo sida aad muuqaalka video ahaan aan daawada ayaa jiro waxaa kamid ah xataa fanaankeena weyn maxamed sheego bishaara heeso محمد شيخ بشارة الله يخليه انت وك سلامة او ايتمي هس لهاي دقاي او توب ما شاء الله فنانكي ادي ادم ومهد علينا استاذك محمد شيخ بشارة ايو دد كلا اصحابتي عنك ها اسغا سفعن كو غراعي سفيعن او غراعي ايو حاجر ويلك صاحبكي او له ان عبدي كيتار هستو حوتمي يكره كرسيان ايو مدقوب جعلك معلومة أبتو ولكن هو صاحبكين وياهي سلامة أصلاً وحواي للفنان هو معلومة أبتوية مركا أنقصوا نقول هاس اللي بعد عاو برنامج كذا قلت لك الشيء هاس اللي بعد وحلا شوبت وعصبت هاي وحي صوب بعد 2017 هاس تانو حكشقي برودكشن ناجي فاميلي كلي يشرير ناجي لواي ان mid ka noogu yar hadda oo muusigada iyo producer noo waxa la lahaa maxamed cali naaji marka yarkaasaas tameeyay muusigada waxa dhalay cali naaji dhalay adeerkaya dhalay waa kan noogu yar marka oo noogu firfircoonsan ma sha Allah muusiga oo shareero kamid yahay adeer cali oo la yaqaan beesistaha oo shareero ahaa beesistu mijri ma sha Allah wiilkiisa asaga muusigan garaacay erayadan waxaa iskale abgaalo waa lahaa ninkaan ma fahanti haye magaciisa abgaalo waa lahaa reer naajile waaye haye laxankana maxamed iskale iyo muusigada asaa kulli maxamed cali naaji aad baad umahadsan tahay waa isku soo noqon doonaa daawadayaasha qiimaha lahow nala daawada hees labaad barnaamijku ugu talagalay diidi axmed naaji heestaas oo la magac baxday shoobto daawasho wacan سيلة كما يلو سيدك لسكو مليقة سيان يلو ملي مسبرا مسواك سقاي أذيقان كسقا سحرير إيقا دام سلواوي شيخان وطقني لو شهود انكيني سوشو كيش الموت كجي شبازيقي شرفان ويالني شبازيقي شرفان ويالني أنا شوت شوبتو أنا شوت شوبت جعلك شوت شرح حالك وما شريبان كدرا شو معان وشلا يالا تقع شليمان تريها شو معان وشلا يالا تقع شليمان تريها ملك لشيحي شلوا وشيقي مرنا مقوآي موركتي جعلك مينين أنكو كيشتي مروادي أتحاتي مدوايا محال مصبرا مسواك وسقاي ملبليك وسقا
saxariir iga dhaafso dhawaawe shiikhaanu tagne laba shuhuud aan geyne sushugeesha lamudka jeeye shukasagii sharafanu yeelne shukasagii sharafanu yeelne adna shuuta shoobto adna shuuta shoobta jaceelka shuuta sharaxaana tuma shiribaan ku dara shumacaan u shida yaa la taga shilimaan tiriha shumacaan u shida yaa la taga shilimaan tiriha malaka la shiixe shala waa u sheege waa hagaag shoobto halkaas aan ku dhaafno sharaxa la tumaa shiribaan ku daraa shumacaan u shiraa shiishaa la tagaa shilimaan tiriyaa sheekada waa sidaan u jeedno heesaha iyo sida maaragtay muusiga lagugu garaacayo waxaan fahmi karaa inay tahay marka laga raba heesta caadi inaad maaragtay dhan kale muusigaaga iyo heesaha laxanka iyo rahamkiisa u dhacayo dhan kale inuu aaday uusan heesihii soomaaliga shaqo ku lahayn maxaa sababa diidi axmed naaji hadda waa ogtahay jiilkii saddexaadaan nahay haye marka Somali music sidii leh ma ahaanayo ma fahad haye xoogaa waa loo baahan yahay inuu isbedel dhaco minaan waxaa leedahay dhalinyarada hadda soo Cusub. baxeyso iyo inta heesahan maaragtay kala dhegeysan intay lahaayeen dhegeysan lahaayeen waa anakana oo Soomaali iyadoo Soomaali waa qabnaa ma oo loo fahad? casriyeeyey oo loo casriyeeyo ma fahanti Haye. oo old schoolkii laga tegey oo ma Haye. fahanti ay ayakabo yani bulshada iyo fanka waa isleeyihiin walaalo waay ma fahanti Haye. marka bulshada oo hadda jirta iyo dhalinyarada iyo waxa in la iskugu keeno Haye. inaan anakane horumar gaarnay muusigeen inuu horumar gaaray Haye. inaan la jaan qaadi karno caalamka kale Caalamka. si dhalinyarada maaragtay loo tuso oo anakane wax fiican oo bandhig faneed oo fiican Aan markii kaga hadda qeyb xasuusatid hobolada waa beri iyo kooxihii jira kooxihii jiri waxay bandhig faneed adduunkay u tegi jireen China Africa meel walbay kasoo qeyb markaas waa la sameyn maadaama hadda aad ku nooshahay dalka caawa waxaan ujeedaa istaalka dalka afrikaankii hadii dhaqankii maaragtay afrikaanka manaa lagu yaqaan inaad soo gashatay aad barnaamijkan sida maaragtay heesahan u dhacayaan ay tahay muusig aan maaragtay ahayn muusigadii Soomaaliya marka waxaad ugu talagashay in Soomaali iyo dadkan Soomaali ahaynba inay dhegeysan karaan ay ku raaxaysan karaan ku ciyaari karaan si annaga heesaha kale qalaad aan maaragtay u dhageysano oo ajnabiga kale u dhageysano marka taas ayaad ugu golleedihiin maaragtay in uu ajnabiga dhegeysan karo Soomaalina dhegeysan karo marka saasaa maaragtay heesaas qaabkii Soomaaligi maaragtay ama laxmadii Soomaaliga uga leexateen sax aan ku soo noqono dad badan ayaa waxay isweydiinayaan maaragtay diidi axmed naaji aaba fanaan caan ah sidaan ka dhawaajiyey oo fanka lagu yaqaano heeso badan caan ah lahaa oo ay Soomaalida aada u jecel yihiin muxuu usoo casriyeyn waaye muxuu ugu heesi waaye su-aalo noocaas ayaa laga yaabaa inay dadka qabaan horta bal inta aan u gelin casriyeenta iyo heesahaas iyo adiga heesaha aaba ma dhegeysataa waa dhegeystaa heesahaas badan uu lahaa heestee maaragtay ugu jeclaad adiga heesta waxaa ugu jeclahay oo lahayo cadey bal caawa waa ku imtixaamaya haye waxaan rabaa bal in aad keliya aad ku koobantahay heesahaagi iyo in aadan ku koobnayn oo aaba heesihiisa aada jeceshahay oo dhegeysato oo heese kamid ah markaas aan kusii weydiin doono in laga yaabo mustaqbalka inaad maaragtay soo casriyeyso bal cadey haddii aada maaragtay muusig la-aan caawo bal xoogaa aada noo qaado okay
cariiri waaye cirka iyo dhulke cadeemidiga caroote calaf waa xumaada ceeb male cadaawadeene tarararara waxay ku calool fayow yihiin inaan colowne adna iga cararte cariiri waaye cirka iyo dhulke cadeemidiga caroote calaf waa xumaada ceeb male. aad baad u mahadsan tahay. weli maskaxdaada ma soo gashay bal heeso badan ayuu aaba lahaa inaad casriyeyso oo aad dib u soo qaado maadaama aad tahay inkastoo uu yuusuf uu kaaga horeeyey fanka yuusuf axmed naaji cabdiwahaab najiib ayaa jiro cabdiwahaab axmed naaji maaragtay cantar naaji oo adeer dhalaa jiro asagana daadiye cantar naaji bal dadkaas dhan nabiil sancaani gitaarista oo juniorka shareero ahaa jiray asagana nabiil waa badantiin laakiin inta heesto waa kooban yihiin oo maaragtay waa kooban yihiin yuusufna maaragtay maadaama marmarka qaadi jiray heesii aabe adiga weli maskaxdaada ma soo gashay inaad qaado heeso aabe leeyahay may weli ma soo gelin laakiin maxaa yeelay aabe weli waa nool yahay haye marka ya dhaxalka weli meel uu yaalaa marka ya ilaahay cumri dheer allah siiyo caafimaad marka insha allah laakiin waa ku jira jirnaa inaa project oo saas oo heesihii duqa oo lasoo cusbooneysiiyo oo si kale loo garaaco habka loo garaaco laakiin soo ma ficneen maaragtay in haddadaan maaragtay sanadaha soo socda maaragtay ilaahay dukraal noqdo si maaragtay asagana aad caawinaad uga heshaan inaad qaadaan ha waa jecelnahay laakiin hadda weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii la jaanqaadka oo generationka hadda jilka saddexaad aad baad u mahadsan tahay hees saddexaad caawa barnaamijka hees saddexaad waxaa macaaney shoobtay ahayd caadina waa kasoo gudubna haddana macaaney malabaa kasii macaan macaaney hees waxawaaye oo very funny oo hadda xataa video loo sameeyey waa social media camal oo snapchat marka dadkii macaaney igala qayb galeen kulli oo meeshaan waa ka salaama markii taageerahayga oo badan ayaa igala qayb galeen waxaad ka dhawaajisay social mediaha snapchatka iyo heestan maxay ka hadlaysaa maaragtay heestan waxay ka hadlaysaa hees jecel waaye macaaney mininkii imaaw makamaal miirka ah marka waxaan u dhiibay asxaabta oo social media asxaabteeda marka fikradda waxay ahayd snapchat video marka fankeyga iyo taageerayaasheyda ayaa soo heesayaan bedelkeyga marka waa ogtahay social media snapchat waa batay mogtahay fikro oo aan weli la sameynin waaye marka fikradaasaa soo bandhignay marka adig badanaaba heesahaaga wuxuu ku salaysan yihiin oo aad rabta inay la jaan qaadaan dhalinyarada maadaama aad rabta in jiilkan saddexaad mar walbaba fankoodii soomaalinimadan ay haystaan afkii soomaaligan ay haystaan dhaqankii soomaaligan ay haystaan heesahana maaragta loo casriyay siday rabaan ay ugu ciyaari karaan ama ugu cayaari karaan ay ugu farxayaan in la sameeyo yaa ereyada iskale marka heesan ereyada waxaa iskale daadir cumar iskale intaan ka salaama saaxiibkii qaali asaa iskale laxanka waxaa iskale maxamed cali naaji iskale iyo muusikadana asiga waaye codkan aniga waaye aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha qiimaha badan oo nala daawada heestii macaanigii fanaanka diidi axmed naaji maseer maskax malehe miir malehe maseer maskax malehe miir malehe
هاتي دونت مديد هاتي دوني ما دونت واي دردي رالتا وديل في دوتي كدافي نفضاس كفضي إفضاس من كلمان مكنية من إستافي كنية مرغي مزيد إغدافي من تاقوستي ملر كصدق باشا كمبلوني معاني منك إماوي معاني أمك مرمي معاني منك إماوي معاني أمك مرمي دايا هي تبدأي ذا سكري إيجيو مكادور سكري لبواي مركا دارانكو مرا إنكي سومرتا دفوه بدلا نور ما هجعل لغتا لغا دافن حرين سلبا نار ما نفضي نفتي ذورو نوركي إلها نلكي قلبيقا نيدا ذفر نرشي نفرا نوسو عليها نوسو عليها نرشي نفرا نوسو عليها عدو ما على شود ويلي عيدان أنا كاكو عياني على بواعت ما عن عويني عرقي عموس اسكنافي إلو نباني نعيش كاعد شي عاشقان إلوني وحي أوكو سومري معاني منك إماوي معاني أمك مرمي معاني منك إماوي معاني أمك مرمي hagaag halkaas aan ku dhaafnay heestii macaaney iyo fanaanka diidi kulley macaan iyo qaraar waxay tahay qoftaas adaa sheegan karto adi un bay maaragtay heestaas ku xiranta umalaynaya sidaadaba adiga maadaama aad tahay nin dhalinyaro ah waqtiyadaada inta aad maaragtay aada joogto fankii aada ku mashquulsanayn adiga maxaad sameysaa oo jeceshahay oo waqtiyadaada firaaqada aada jeceshahay inaad maaragtay ku qaadato walahi aniga waxaan ahay qof oo social ah haya marka waxaan jeclahay mar walba asxaabteyda familiga marna waxaan jeclahay jimkeyga soonadeeda iyo steamkeyga hay meelahaas ina aado weli dhalinyaro inaa iska shaqaysid waa caqliga saliimka jismiga saliimka ku jira marka waxaa waa in maarad jiska dhisaa la ordaa isboorti la sameeyaa kooxda taageerta adiga horta aniga waxaa taageeraa Chelsea haye inay kooxaha Soomaaliya ka jiraan ogti waa ogahay elman wagad gaadiidka waa la socotaa banaadir waa la socotaa kooxaha Soomaalida aad iyo aad ma laga yaabaa mustaqbalka dhow inaad dalka dib ugu noqoto insha Allah hadduu ilaahay ka raali noqdo insha Allah waan rajeynayaa mar dhow haye oo halkaas aad tagto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa taageerayaashaada inay halkaas joogaan insha Allah laakiin weli waqti kuma cayibna waqti ima cayibna laakiin waxaan rabaa barnaamij fiican wax fiican iyo heesaha dhalinyarada wacyigelinta inaad meesha ka wadid waad mahadsan tahay maadaama aan barnaamijkeena gabagabadiisa kusoo dhawaanay caawa barnaamijkana marti aada igu noqotay yaad kaga faa'iideysan lahayd barnaamijkana marka ugu horeyso aada jeclaan lahayd inaad halkan ka salaanto fariin inaad maaragtay aada ka dirto waxaan ku leeyahay kusoo dhawow horta kow waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan taageerayaalkayga meel walbay joogaan halkan international waxaa ugu dirayaa hooyaday oo Muqdisho joogto maasha Allah salaan qaali ah iyo aabahay oo halkan xaaliyan ku sugan magaalada Nairobi salaam kulli dhamaan asxaabteyda oo dhan reer naji family oo dhan meel walba ay wada joogaan waa salaama iyo wixii asxaabteyda oo idaawanayso haddana waa salaama kulli
waxaa laga yaabaa inaan nin micnaha dhalinyaro badan ay daawado barnaamijkan oo la daawado oo la dhaho diidi axmed naaji soo fadhiiste maadaama aadna nin dhalinyaro tahay dalkiina aad ogtahay wacyiga uu ku jiro maadaama hadda sida hore usa ahayn haddana se mar walbaba dhalinyaradii qaarkood badahaas tahriib bay soo aadaan qaarkood waxaa laga yaaba in la marama habaabiye maadaama aad dhalinyaro tahay mar kale haddaan fursad ku siiyo dhalinyarada maxaad kula talin lahayd ee ku daawanayso ama taageerayaashaada dhalinyarada waxaan dhihi lahay dhalinyaro i dhegeysta dhawaaqayga iyo heesta yuni dhaafi murtadeeda dhabtii waxaana laga sheegay kuwa aan la dhaqanahay dhiigeenu ma ahay dhogorteena ma ahay waa kuwiina soo dhaweeyay ayakuna aanu dhorno anakuna aan isdhorno ininkana gacmaha isqabsada qabiil iyo waxaas iska joojiye waa hormarnay marka dowladnimada hala taageero marka taasaan ku tali lahay dhalinyarada soo tahriiba inay wadankooda wax ka samaystaan anaka waa soo naqonaynaa anakaan noqonayno dhulkii anakoona sugaya anakaa u dhalanay anakaa inaad dhisno aad baad u mahadsan tahay hees ugu dambeyso aad jeclaan lahayd barnaamijka inaad kusoo gabagabayso caawa heestan waxay soo baxday bishii hadda lasoo dhaafay diamone waaye heestan waxaa sameeyey macalinka yariiska aan dhihina hadda macalinka yariiska oo reer naaji waaye ninkaan maxamed cali naaji maya muusigada iyo laxanka asaa iskaleha ereyada waxaa iskale saaxiibkey daadir cumar iyo aabahay oo iskaashadeen labadooda ayaa maaragtay deemanay maahe waa deemanay waxaad ka wada adigu baa taqaano aniga waa maqli jiro deemanay laakiin deemanay weligii maa maqlay marka aad baad u mahadsan tahay guud ahaanba intaas ayaan waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena xidigaha oo caawa marti ugu ahaa fanaanka da'da yar diidi axmed naaji barnaamijkan waxaa xagga farsamada sida quruxda badan ila qaabeynayay injineer yuusuf ibraahim garbey ayadoo uu gacan ka helayay xanaan shidane waxaa barnaamijka idin daadiinaya anigoo cabdullaahi xasan maxamed wiish tani intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay oo idinku dhaafayaa heestii demanay iyo fanaanka diidi axmed naaji sacad daawasho wacan soo martaya qalbiga maanta ka dhaqa dheefii malabaad dhadhamihe dhimanii luulaan ka dharjihaye dhinacayga imaw hadheeraane hayga dheeraane dhudhumashaaliga dhaafso dhawaawe ii soo dhawa ruuxa isku dhiibta ogow didi najiweye ogow dhabtii waa fiicantaho aqlina waadaadhisna rabaaye dhankay imaawe daymanay fursadanyayna dhaafin oo isdhaafine dhibkii hore soo martaya qalbiga maantaan ka dhaqa dheefii malabaada dhamihe daymanii luulaan ka dhajihaye dilac adduuma dhammaana dhaxan dhinacay kama gaare daymanayso dhawaab dhabku siiye daymanayso dhawaab dhabku siiye inaan kaliga aan la dheelo intii nolol dhiman la dhammaysto waxii naftaa ku dhargayso inaan dhabarkay kugu keeno daymane admaanka dharga admaanka dharga admaanka dhargaaye dhuuxii dhiigayga tahe dhuuxiya dhiigayga tahe dhuuxiya dhiigayga tahe dhibkii hore soo martaya qalbiga maantaan ka dhaqa dheefii malabaad dhamihe daymanii luulaan ka dharjihaye dhinacayga imaw hadheeraane hayga
دقة في ملبات دمه دايماني لولا قاعد فيها لنا عيقة إما ديراني عيقة ديراني بدون مشاعر نفس دوامي